sidii aynu ku heshiinay oo isku afgaranay jalbeebkeennii hore gabagabadiisii markaynu gaadhnay caawa waxaynu doonaynay inaynu qurmaha ka yara sheekaysano oo aan dhibaatooyinkiisa oo keliya ahayne isla markaana aynu eegno faa'iidooyinkaynu ka faa'iidnay iyo waxaynu ka kororsanay aqoon ha ahaato amba ilbaxnimo amba wax laga ilbaxay oo laga jaahilbaxayba ha ahaatee waxaan doonaynaa si gaar u xuso oo xusuus dheer inaga mudan inamadii dhallinyarada ahaa ee Soomaaliyeed ee gal iyo cabayrkii dagaalkii labaad markii ay Yurub isku ololeysay ciidamada Yurubiyaanka u kala dagaal galay ee lagu shaqaystay ee xagga ciidamada halka ugu hooseysa ee abaabulkana kaga jiray marka ay dagaalka noqotana halka maadal la isaga dhigayo ayay kaga jireen ee waxay u dagaalameen Faransiiska, Portugiiska, Ingiriiska, Talyaaniga iyo Jarmalka iyo qaar kale nimankaasi gari magalaan bay ku dhinteen hadday dagaaladii ku dhinteen haddii ay amarka Ilaahay badbaadeen oo ay dalkii ku soo noqdeen gurno yar baa loo soo diri jiray oo daabiyada ay degan yihiin loogu geyn jiray laakiin wax afgaranaya iyo dad isku aqoon isku waayihiin ma haysan kullaba cidla iyo amakaag ay meelaha ugu dhinteen galbeedka Afrika ilaa hadda ay ku dacwoonayaan xuquuqdii dadkii dagaalamay sida Senegal iyo Mali iyo dalkan iyo dhulka galbeedka in ay gumaystuhu ay siiyaan arrintaas waa arrin dib u noqosho leh xuquuqdii nimada Soomaaliyeed dagaalka galay oo ka mid ahaa nin aniga abtii ay ahaa oo gabaya ahaa oo Jarmalku soo dagaalamay ninkii lagu yiri Saalax Balleekire baa loo jiray oo la yiri wadhooro aan dhalin waadigii dhoofay oo tagay baldhadhami qaraar iyo macaan kuna dhamo xoolku kana dheereg Ilaahay ragba meesha ku dhigay wuxuu ku yiri dhaxalkii adoogay dhigay ayaa weli dhamaysanay dhibaatooyinkan maray dhararaha horaad dhiman lahaydeen بس كنت كورة لا لا